بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أديات بض مهسنتهين محمد مصطفى بنشيد iyo عبد عمر جبريل. waxaan idinku soo dhaweynayaa xafiiskan oo ah xafiiskii madaxa wararka ee telefishinka qaranka Soomaaliland. haddii aan warbixin guud aan ka bixiyo xafiiska wararka ee telefishinka qaranka Soomaaliland oo aan ahay mas'uulkii runtii u sareeyay xafiiska wararka ee telefishinka qaranka Soomaaliland waxa uu ka mid yahay xafiisyada ugu muhiimsan ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland gaar ahaan telefishinka qaranka Soomaaliland. xafiiskani waa xafiiska ay soo gaaraan guud ahaan wararka gobolada iyo degmooyinka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka yimaada sidoo kale wararka gudaha caasimadda Hargeysa. xafiiskani waxa uu halbowle u yahay sidaan hore u soo sheegay guud ahaan wasaaradda warfaafinta. markaan leeyahay waxa uu halbowle u yahay waa xafiis ay ku soo dhacaan guud ahaan wararka caasimadda gobolada iyo degmooyinka dalka kuwaasi oo runtii markaa ka baxa baahimaha kala duwan ee telefishinka qaranka Soomaaliland iyo sidoo kale baraha bulshada ee warbaahinta dawladda. waa xafiis quudiya waaxaha kale ee warqabad ama barnaamijyo. markaan sidaa leeyahay macnaheedu waxa weeye wararka halkan yimaada qayb waxa la geliyaa online-ka, qayb waxa la geliyaa YouTube-ka, qayb waxa la geliyaa Allahumma salli ala Muhammad Twitter-ka. sidoo kale waxa wararka imanaya laga sameeyaa barnaamijyada kala duwan ee markaasi ka baxa ee telefishinka qaranka Soomaaliland. sidoo kale mararka qaar wararka soo gaara telefishinka qaranka Soomaaliland waxay ka baxaan idaacadda Radio Hargeysa oo markaasi ay sii gaarsiiso wakaaladda wararka Soomaaliland ee Solna. 15 bishii 7 2021 ay xafiiskan waxay magacaabay agaasimihii guud ee hore ee wasaaradda warfaafinta Maxamed Yuusuf Ismaaciil iyadoo markaasi la doonayo in halkii uu xafiisku taagnaa laga dhaqaajiyo wixii qabsoomay ee markaasi jirayna la doonayo in la dardar geliyo. runtii muddada aanu xafiiska joognay waxyaabaha aanu isleenahay waa qabsoomay waxa kamid ah ugu horeyn markii aanu xafiiska nimi waxaanu isku daynay inaanu wax ka bedelno qaab qoraalkii hore ee warka oo markaasi ahaa qaab old fashion ama runtii qalin iyo warqad lagu qoro. waxaan u bedelay runtii in aanu computerize ka dhigno oo aanu qaab computerka aanu ku qorno oo markaa runtii qaab wanaagsan oo la fahmi karo ay noqoto. qoraalka wararka waxay naga caawiyeen in wariyihii warka akhriyay uu si fudud warkii u akhriyo oo markaasi tafaftiran. sidoo kale waxay naga caawiyeen in aanu helno wasaaradda ama hay'adda ugu warka badan ee ku xiran warbaahinta dawladda gaar ahaan telefishinka qaranka Soomaaliland. sidoo kale qoraalkaasi aanu qorayno wararka waxa lagu ogaanayaa wariyaha ugu warka badan maadaama la qorayo cidii warka keentay oo markaasi waxaan u sameeynay faylal iyo document iyo daatooyin ay ku kaydsan yihiin wararkaasi magacii wariyaha Allahumma salli ala Muhammad hay'adii wasaaradii mid walba way ku kaydsan yihiin. waxaan isleenahay waa mid kamid ah waxyaabaha muddada ay joogteen xafiiska runtii idin qabsoomay ama saahir geliseen. kaydinta wararku runtii waxay sidoo kale qaab wanaagsan ay ka qaadanaysaa habsami socodkii shaqada oo dhacdooyinkii sanadka dhacay ama 6 bilood ama 3 bilood baa lagu ogaanaya dhacdo wareeda soo gaadhay xafiiska ama wararka ugu muhiimsanaa ee markaa qaranku u qabsoomay ama u qabtay. runtii waxaanu sameeynay baadi sooc ama sumad u gaara xafiiska wararka oo lagu garto waraaqihiisa iyo dhugmatiga ka baxaya oo markaasi warqad kastoo xafiiska wararka ka baxda ay yeelato dhugmati u gaara ama baadi sooc u gaara taasoo markii hore runtii aan jirin. waxaanu sameeynay isla xisaabtan ah wariyaasha oo xafiiskan runtii ay wariyaasha ay hoos yimaadaan. wariyaha waxaanu kula xisaabtanaa inuu warka xilli hore keeno inuu xilliga loo asteeyay shaqada oo runtii soo galo taasi oo runtii door weyn ka qaadatay habsami socodka ee shaqada xafiiska wararka ee telefishinka qaranka Soomaaliland. runtii waxyaabaha aanu xoojinay muddada waxa kamid ah in Allahumma salli ala Muhammad wararka baraha bulshada galaya ay noqdaan warar si degdeg ah u gala baraha bulshada oo markiiba bulshada gaadha maadaama yahay telefishinka qaranka Soomaaliland oo ah runtii qabaal weyn cid walba ay isha ku hayso ama isheedu ay qabanayso inuu noqdo meel wararka galaya ay noqdaan kuwo qurux badan oo si degdeg ah ay bulshadu markiiba u gaadhaan oo ay u helaan xogta aanu gudbinayna ee markaasi aanu ka gudbinayno gobolada iyo degmooyinka dalka. runtii waxyaabaha kale qabsoomay ee aanu mas'uuliyiinta wasaaradda warfaafinta waqti xaadirkan hoggaanka u hayaan ugu mahadnaqayno waxa kamid ah in la keenay xafiiska wararka ee telefishinka qaranka Soomaaliland kombiyuutaradii u dambeeyay
oo ah kombiyuutaro shaqada fududeynaya ahna kombiyuutaro casri ah waxaan uga mahadnaqaynaa wasiirka cali xasan maxamed cali mareexaan wasiir ku-xigeenka agaasimaha guud oo runtii hawshaasi ku dhiirday sidoo kale stuudiyaha wararka iyagana waxaa la keenay kamarado casri ah oo runtii lagu galo wararka habsami socodka shaqadu runtii waa mid maalinle ah oo markaasi muunida iyo maqaariibta iyo milayga hooyashadaba markasta shaqada xafiiska wararku ay tahay mid joogta oo aan nasasho lahayn oo habeen iyo maalinba runtii xafiisku waa mid furan oo bulshada ayaanu gaarsiinaa wixii warara ee markaa qaranka iyo bulshadaba aanu kasoo qabanay ee bulshada wax u taraya sidoo kale waxaanu hagaajinay xiriirka ka dhaxeeya shaqaalaha iyo allahumma salli ala maxamed mas'uuliyiinta wararka iyo wasaaradda oo runtii aanu isku xidhnay shaqaalihii iyo mas'uuliyiintii oo ah kuwa xiriir wanaagsan leh qofka markii loo baahdo la helayo wax kasta oo markaa qofka kale u tabayana runtii uu sheegan karo waxaanu soo kordhinay runtii muddada aanu joognay barnaamij la yiraahdo wariye subax wanaagsan oo aanu gobolada iyo degmooyinka dalka subaxdii kula xidhiidhno kuna weydiino wixii ay warar hayaan ee markaasi maalinle ah taasi oo runtii keenaysa in wariye kasta gobolka iyo degmo kastuu joogo la ogaado warka iyo dhacdada uu hayo waxyaabaha runtii muhiimka iyaguna runtii qabsoomay waxa kamid ah waqti xaadirkana socda in stuudiyihii wararka ee telefishinka qaranka Soomaaliland dib u casriyeyn lagu sameynayo stuudiyaha wararka dib u casriyeynta ku socota waxay noqon doontaa in uu noqdo stuudiyahaasi kii ugu casrisanaa ee stuudiyo telefishin leeyahay ee ku yaala guud ahaan Soomaaliland uu noqdo waxaan uga mahadnaqaynaa mas'uuliyiinta wasaaradda warfaafinta oo runtii ugu horeeyo wasiirku oo aragtida iyo yoolka arintaasi lahaa waanaan ku bogaadinaynaa sidoo kale hawlaha ka socda xafiiska wararku waa mid kamid ah hogolaha horumarineed ee aan isleeyahay wasaaradda ay ku horeen muddooyinka u dambeeyay oo ay hogaaminayaan mas'uuliyiinta wasaaraddu higsiga xafiiska wararku runtii waxa weeye in wararka telefishinka qaranka Soomaaliland ay noqdaan meesha u horeeya ee bulshadu markaa war ka hesho sidoo kale waxyaabaha higsanayna waxa kamid ah in gobolada dalka lagu soo galo warka oo stuudiyaal laga hirgeliyo warka lagu soo galo imika warka waxa lagu galaa caasimadda Hargeysa iyo sidoo kale stuudiyahan ku leenay magaalada London oo mararka qaar aan ku soo galno ama toddobaadadiiba hal mar lagu soo galo marka runtii hawlaha socda waxa si wada jira u qabtay oo aanu mahadnaqaya ku-xigeenada xafiiska wararka oo markaasi ah Khadar Maxamed Maxamuud Khadar Quule iyo Maxamed Ibrahim Dhibil oo kamid ah ku-xigeenada xafiiska wararka oo runtii shaqada iyaguna doorka iyo kaalinta ay ku leeyihiin runtii ah mid lama ilaawaana waanu mahadnaqaya sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa hawladeennada kala duwan ee xafiiska wararka ku taxan haday noqoto sawir qaadayaasha wariyayaasha editarada kuwa gobolada iyo degmooyinka jooga qof kasta oo xafiiskan xiriir la leh oo markaasi shaqada socota door iyo kaalin ka qaata waana hal ku dhigiyaha nin gufeeye mooye ma jira ruux gunaanaday taasa markaa runtii inoo ah astaan sidoo kale waxa la dhaadantu wada jir guud bay dayac kaga fogaataa gacmo wada jir bay wax ku gooyaan shaqadaanu haynaa waa mas'uuliyadana runtii de waxa la hayaa waa maalmo iyo muddo maalmaha iyo muddada aan joogno xarjeenayno in mooluhu nagu asturo anaguna maadaama aan nahay niman dhalinyaro ah oo runtii ay xusid mudan tahay in 2005 baa telefishinka qaranka la aasaasay madax qeybeedadii madaxa wararka soo maray runtii waxa laga yaabaa inaan anigu ugu yarahay nimanka dhalinyartaay xafiiska ku-xigeenada ah waxaan rajaynaynaa maadaama dhalinyaro nahay in aanu kaga tagno maalintaanu xilka wareejinayno maalin bay noqon doontaa annagoo wax qabanay oo runtii xafiiskaasi aan isleenahay halkii ugu timaadeen meel ka sareysa oo dhan walba la gaarsiiseen marka guud ahaan waxaan inta ku soo gabagabeynayaa warbixinta wadeen maxamed muuse iyo cabdi cumar oo barnaamij guud ka sameynayay waaxyaha wasaaradda iyo qaybaha kala duwan ee wasaaraddu ka kooban tahay وانا idinka mahadnaqayaa aad iyo aadna waa mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh